dhaydkii Jimcaha ceeb wixii dhoodi laga qaaday dhawaaqa maansa kaagama furnee dhoohana tahay dharka dumarka iyo waxaad geedaa dhiiga caadadee dhuug iyo kaneecaad ku tahay dhudaha Soomaali waxaad ugu dhawaataa kufriga dhooni raacnime waa dhabanahays xaaladay soo dhigdhigayaane inaad dhinaca saarteen Yuhuud waa dhambaal fulay halkan waxaan ku duubayaa laba gabayga hore waxaa tiriyay nin habar jeclaa oo la yiraahdo Geedi Cabdisalaan Caarad Duub ninkaas waa nin reer Burca dagaalkii Gooja Cadde dabadiisii ayuu soo diray gabaygan wuxuu yiri rag baa gabayga meel dheer ka daya waa ku dhalanaay dayal iyo ciyaar uma tirshiya anigu dheeldheele maalintay dhanaantan sidii dhibica hooraaye ragii dhoohanaan jiray haddii dhowr nin laga toogtay sidii awr dhufaanay baqaha dhababaceeyeen warsangarigii dhaantiinayay dhahar ka soo duulay ragii dhiiranaan jiray markuu dhuunta kala gooyay dhiilada baroortay sidii galow dhawaaqeen alayleh dhulbaanta ku lumay dhaadashada guude dhawaaqay hartiga lagu jabiya dhalasha raacdayse ruwaagii nugaaleed ka dheregay dhinacyadoodii inakadiya waa kii dhintay ilka loo inakadiya waa kii dhintay dheelmadee tigay dhaguhu furaysto isaga dhaafay waanade hadda dhamiye geerida rag baa dhuuxa heensaday maalintii dhaweyd inamadii dhoodi lagu laayay dhaqso loogu aariyo wala dhig rag baa xigay ma dhufsado ma jeerteen haday dhabaqda maantaasi dhabarkiisa sinaha aadana u dhereeray maaruuye dhaawaca garow yeelayaab dhimashadoodii afarta ma dhalan dhooliyo dhaxalgal ma yeela dhacda gabaygu ka doonaya dhidibka mawtaagi qarankani haduu dhiidiyo dhaar wax maqashiyo dhamihiya haduu saanadii dheega ku adkeeyo abidkoodba lama dhaafi jirin dhowrta diriireede dhubtii goldheerood ragan dhuuriyada u loogay ruuxii qulqulay caynaba dhigad ku haystaaye wixii reedab dhub kugu dhiciyo dheeliyaa imani dhinacyada Hargeysa berbera maalin laga dhoofi daraar kaliya baadlaamiga magan ku dhaafteen dhoobiyay noqdeen janaanadii dhanka loo raray ee dhangad bay u qaateen harweyn aaga dhagax dheere marka dhiilku buuxsamaba waad dibiqtiflaysaane dargal sidaa tihiin baa dadkaba ugu dhagaysaane waad dhamin waxaan ku hayiyo dhamacda aan ooga buuri gabayga markuu soo tiriyay ninka habar jeclo gabayga waxa ka jawaabay nin dhulbaanta oo reer Bohoodlaha magaciisa laado Cali Cawil Maxamed wuxuu yiri Axmed oo dhawaaq gabay baryahan waanigii dhigay dhowr sano ma tirin man sidii dhumucda weynaydi dibka aakhiraan uga tagiyo dhiile godobeedi markaan se dhan uga leexdaba mid baa dhiiqa jiifsadee rag baa gabayga goortay dhahaan lagu dhaliilay oo xarafka dhaawaca intay kala dhantaalaane haddaan anigu madal loo dhan yahay dhab ugu luuqeeyo dhaqsaan ugu tiraabaa midaan dhaguhu diidayni mar haddaan dhaxgala kaygu waa dhibic mahiigaani hartiyo dhan baan ugu jiraa booskii Cali Dhuuxe idhageysta caawo kalaan dhagaxya tuuraaye ninka gabayga soo dhiibay oo dhuga jawaabtayda maalintay dhanaanaato ee dhaayin ololeyso dhafoorada raggeediya markii dhuunta laga toogto dhufayskiya markii la isu galo dhiraha hoostooda dambiilaha rasaastiya markay dhacaysa baaruud geesigu markuu dhiirraday ee fuluhu dhaameelo ee dhaxal wadaaguhu ka tago dhaawiciya meydka weligaaba goob lagu dhugtamay dhoonbirmaad ridin dhufaan baad ahaydeen markay dhabaqday waagii dhugdhugta iyo faankiina waa dharabka dayreede mar haddii waqtigu dhaahirto dhacar la soo gaadho oo uu dhashii ku hoonkooda waa dhanqalantaane warsangariga dhaantaynaya dhahar ka soo duulay dhan kastay maraan waa ragaan cadowgu dhaafayne hadday dhiidiyaan uumiyuhu uma dhowaadaane dhayal uguma tago wiil dubays dhab u yaqaanaaye cumarna waa dhigoodoo kaliya lama dhaliilaane dhoobada sanaag waa raggaad uga dhaqaaqdeene ma jeerteen dhankuu iga xigaa waa dhufays adage waa lagu dhintaa meel hadday dhoosha geliyaani dhadig iyo isaaqlama hadlaan dhowrta diriireede boqortooyo lagu dhaartay iyo waa dhammays qarane dadka kale waxay dheer yihiin dhowr kunoo sane badda maalka laga dhoofiyo dheemintiya lulka dhisma dawladeed iyo aqoon dhidibka loo taago haddii gacan wax laga dhiibo iyo dheef la bixinayo dhan kastay ku tahay gobonnimo loo dhammaystirayo dhan kastay ku tahay gobonnimo loo dhammaystiray oo dhaqaalaha wax lagu maamulaa waa dhita u taale intaasoo dhibcood bay dhigood kaga horeeyaan gabay kuma dhammayn karo intay dunida dhaafeen
haddii aanay daarood ka dhalan lama dhaqnaadeene dhulka lama degeen oo xornimo laguma dhaateene waa dhabarka seedaha qabtiya dhuuxa bawdyahay ilaahay ha dhowree tolkay dhumucle weeyaani dhirbaxada siduu kula helay way ugu dheer tahay afartaa sidii dhoolonkaday dhibicda mawsaydha dhextaalkeeda layguma qabtee dhayma ka cadeeyey ba ku dhilay dhabihii loo cayimay dudaha suugaanta rag baa kala dhantaale ee miyaan dhaabi xididkeeda dhuuxiyo sidii aadan carab dheeli ma u diidi niman baa la dhuntay murtida dheeri ma u sheega afar kale ma dhaafine haddan ku dhambalayaaye dhammaantiiba iidoor markii dhowrse laga waayey dhowrqaad markii loogu xidhay buurta dhaladeeda markaan dhuumo wada qaacale iyo dhamac ku sii daayey dhufaystada markii loogu galay dhagoridii muuse dhafandhaaf markii loogu riday dhumucda BM-ka ay dhimashadoodii arkeen dhaawiciyo meydka nabaddana ma dhowraan dhibkana uma adkaystaane sidii geel ruwaagalay bankay dhababaceeyeene dhunya xuusho iyo soololbay dhabarka tiirsheene iyadoon dhalcadu diinin baad dhaaftay caynabe isma dhuganin jeeray galeen harada ceel dhaabe 30 sano iyo dheeraad hubkii dhididka loo saydhay ama geel la soo dhoofiyey kugu dhaqaaleeyey gacantan ku soo dhigay iyagoo dhooban xeradii Faysal iyo waxaan jeelka dhigay qaar dhigiisa daraar kaliya baan ka qabsaday kun iyo dheeraade waxaan adduunyada ka dhicin dhagina weelayni dhuxun iyo maraaga tulka dhammeelu yaalaay dhagax baa la moodaa lafaha tuuran doodide goobihii la dhigay baa ku hudhuuqaya waliye dhubaha waxaa qaaday waa dhiigi ka baxay tii hooyada ku dhashay dhaafay dunidii dhinacyada walaalka ruwa baahan baa cunay hadaad diiran tahay dhaawacaad guran lahaydeen dhulbaantaanu soo qabanaynaa lagu dhalay cawiye haddii caarka loo soo dhigto cadow dhibaateeyo nafta kuma dhabcaale anagu waa ku dhibanaay cilaad kaga dhaqaaqdeen hablihii dheemanta ahaaye dharkay noo qasaalaan markay dhalasho waayeen afartaa sidii dhoolonkadii dhibicda mawsaydha dhextaalkeeda layguma qabtay dhayma ka cadeeyey ku dhilay dhabihii loo cayimay dudaha suugaanta rag baa kala dhantaale ee miyaan dhaabi xididkeeda dhuuxiyo sidii aadan carab dheeli ma u diidi niman baa la dhuntay murtida dheeri ma u sheega afar kale ma dhaafine haddan ku dhambalayaaye maalintii goldheeriyo haddaad dhagartii noolaysay amaad reedab dhuubiya galgala guul ka dhiganayso dhinacyada wixii lumay markii dhabiga loo qaatay dheeraadka idinkaa lahaa dhaawac iyo meydi dhallinyarada reer nuuxintan dhuuriyada u loogay dhaameelka hawdiya ka badan dhagadka caymeede dhacdadii kalshaaliya hayaan dhuuxa kaa qubaye dhexdig baad u gedgeediyow dhimashadiinniye irbaaxooyinkii gaani baad dhaga barjowdeeni hadday magan ku dhaafeen arlada dhagarna loo geystay oo aad dhoofiseen yaa lafaha dhabarka kuu saaray afartaa sidii dhoolonkaday dhibicda mawsaydha dhextaalkeeda layguma qabtay dhayma ka cadeeyey ma ku dhilay dhabihii loo cayimay dudaha suugaanta rag baa kala dhantaale ee miyaan dhaabi xididkeeda dhuuxiyo sidii aadan carab dheeli ma u diidi niman baa la dhuntay murtida dheeri ma u sheega afar kale ma dhaafine haddan ku dhambalayaaye dhaydkii jimcaha ceeb wixii dhoodi laga qaaday dhawaaqa maansa kaagama furnee dhoohanaa tahay dharka dumarka iyo waxaad geedaa dhiigga caadadee dhuug iyo kaneecaad ku tahay dhudaha Soomaali waxaad ugu dhawaataa kufriga dhuuni raacnime waa dhabanahays xaaladay soo dhigdhigayaane inaad dhinaca saarteen yuhuud waa dhambaal fulay mar haddii dhibaatiya dagaal dhidibka loo taago dhoomaha siciyadoo qunaan laga dhammaanayni nimankii ku dhamanaanin jiray soo dhalaashadee dhibaad looma bixin ciidayada gaalla muu dhicini ninkii dhaxal qabow moodayo waa dhunkaal mirege dhamme iyo intaad kaarabiin dheega ku adkayso ama aad ciyaal soo dhurtiyo dhugufka reer baalle lagu furaystaa ninkay ruuxdu dhibaysaaye weligaaba soo dhaaro waa dhabar jabkiinii wabilaahi tawfiiq